kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxaa qayb ka ah ruushka markan waxa uu bilaabay inuu caburiyo dadka ruushka ah ee ku sugan gudaha wadankooda haddaba dad badan ayaa laga qaaday ama lagala laabtay jinsiyadii wadankoo dhan haddaba dagaalkan ciidamada ruushka iyo sidoo kale maamulka ay ku bilaabeen shacabka wadankaas muxuu yahay barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa Febraayo 24-keedii ruushka waxa uu bilaabay duulaan qorsheysan oo uu ku qaaday wadanka Ukraine kaas oo ugu magac daray howlgal gaar ah isla maalintaas saraakiil aad u waaweyn iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhigay mudaharaadyo waxaana ay dhigeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan duulaankaas waxaana sidoo kale durbaba ay bilaabeen qaarkood inay isaga baxaan oo ay ka cararaan magaalada waxaana ay ka mid ahaayeen mucaaradka wadankan bishii Maarso iyadoo jawiga qof kasta uu si cad uga soo horjeedo Moscow in loogu yeero howlgal gaar ah uu sii kordhay cadaadiska laamaha ammaanka ayaa go'aansaday in aysan ku sii sugnaan wadankan qaar ka mid dadkii ayaa ka cararay waana siyaasiyiin mucaarad ahaa waxaana qaarkood inta badan ay u baxsadeen wadankan la yiraahdo Jarmalka mudaharaadyada ayaa si adag looga xadiday ruushka mudaharaadyashuna waa inay ogolaadaan mas'uuliyiinta ka hor inta aysan qaban munaasabad dalka ruushka ayaa waxa ku nool dad badan oo ajnabi ah waxaana inta badan dadka soo galootiga ah ay ka soo jeedaan jamhuuriyaddii hore ee Soofiyadeed sida Armenia, Ukraine iyo Tajikistan waxaana intaasiba ay yihiin kuwa banaanbaxyo qorsheynaya laakiin iyadoo aan fasaxaysan xitaa banaanbaxyo yar ma aysan dhiga karaan sida uu qabo dastuurka muwaadiniinta ruushka lagama qaadi karo dhalashada iyo kuwa dhalashada haystaba ee la siiyo ee ajaanibta ah iyo sidoo kale kuwa helay noloshooda dambe waxay ku raaxaysanayaan xaquuq ahaan mid siman labada dhinac laakiin mararka qaarkood waxa dhacda in qaladaad xafiiseed awgeed muwaadiniintu ay ogaadaan in baasaboorkoodu loo bixiyay si sharci darro ah kiisaska baabi'inta jinsiyadda ayaa aad u badan marka loo eego dadka dhalashada helin ee wadankan la yiraahdo ruushka tani markii dagaalku u bilowday laakiin sababo kala dartood ayuu u yiri mas'uuliyiintu waa looga qaadayaa waxaana sidaas la madaxa dacwadda ee NGO-ga la yiraahdo Russia Behind the Borders adeegyada socdaalka inta badan waxay lumiyaan dukumiintiyada sidaa darteed waxay isku dayayaan inay qariyaan qaladaadkooda ayuu markale u sheegay warbaahinta Al Jazeera dulucda warbixinta ayaa ah in hadda ruushku uu bilaabay howlgallo baaritaano ah oo wadanka gudihiisa ah taas oo lagu bacsanayo dadka ruushka u dhashay kuwa ajaanibta ah haysta dhalashada dhammaantood in la ugaarsado haddii ay ka soo horjeestaan weerarka ruushka ee Ukraine waqtiga ayaa sheegaya bay leeyihiin xafiiska dacwad oogaha guud ee ruushka kama uusan jawaabin codsiyo ay warbaahinta u dirtay oo ku saabsan xaaladan 2018 ayaa sidan oo kale cabsi dagaal oo la xiriira gaangiska waxa ay ka dhacay ama ay ka dilaacday wadanka Ukraine durbaba wasaaradda arrimaha gudaha ee ruushka ayaa u adeegsatay qodobka 22aad si ay uga mamnuucdo Tarial Onana oo ah sayid dambiile ah ama hogaamiyihii dambiilayaasha asal ahaan ka soo jeeda Georgia dhalashadiisa sabab la xiriira in uu si daacadnimo ah u helay ruushka ayaa u gacan galiyay Spain halkaas oo lagu doonayay in dambiye abaabulan lagu dul saaro waana la xukumay laakiin sida laga soo xigtay dad badan oo ku sugan wadankan oo ruushka la yiraahdo waxay calaamad u tahay markii ugu horeysay ee tallaabo noocan oo kale lagu sameeyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed arrimo la xiriira waxaan horteena haysanaa nidaam aad u fudud oo ku habboon gobolka kaas oo lagu dabaqi karo ku dhawaad dhaqaale kasta oo helay ama qof kasta oo helay jinsiyadda ruushka ee aan dhalashada ahayn ayay tiri mas'uuliyad ka tirsan ama sarkaalad ka tirsan ciidamada wadanka ruushka balse hadda shaqo gab ah ama shaqada laga joojiyay ilaa ay hadda tani waa kiiskii ugu horeeyay noocan oo kale ah laakiin maamulka socdaalka ayaa hore u maareeyay nidaamka isticmaalka joogtada ah ee arrimahan la xiriira ee ujeedooyinka siyaasadeed waana arrin waqti ah inta badan dadka ka soo horjeeda dowladda ruushka ayaa isku arkay inay wajahayaan eedeymo dambiyadeed kuwaasi oo ay ku andacoonayaan inay dana siyaasadeed ka leeyihiin tan waxaa ka mid ah ama ka mid ahaanshaha maandooriyaha ayaa qayb ka ah taas oo u baahan caddeyn hoose eedeymaha kale waxaa ka mid ah nacayb khiyaano iyo muujinta xagjirnimada taas oo noqon karta kaliya wadaagidda boostada baraha bulshada hogaamiyaha mucaaradka
Alexei Nave ayaa hadda xilka haya 9 sano oo uu ku eedeysan yahay wax isdabamarin. Sida laga soo xigtay kormeeraha xuquuqda aadanaha, waxa uu sheegay in 15,000 oo Ruush ah loo xiray falal gadoodsan tan iyo bilowgii dagaalka. Qaar badan ayaa sugaya maxkamad, qaarkoodna waaba la iska ilaaway tan iyo markii Febraayo dagaalka uu bilowday. Sidoo hadalka u dhigay bishii Abriil, xildhibaan Vyacheslav Volodin waxa uu ku baaqay qaa'imiinta ka soo horjeeda howlgalka gaarka ee Moscow in laga xayuubiyo jinsiyadda, wuxuuna ku calacalay ma jiro hab lagu kala laabanayo dhalashada lagana hortagayo inay soo galaan waddankeena. Volodin ayaa mar sii horeysay isku dayay inuu meel mariyo sharci kala noqoshada jinsiyadda 2017, laakiin waxaa meesha looga saaray sharci darro maadaama baarlamaanku ay ansixin waayeen. bishii Diseembar ee sanadkii hore, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku tilmaamay kuwa ka soo horjeeda dagaaladiisa inay yihiin kuwo aad u xun oo reer galbeedka iyo sidoo kale qaa'imiin ay soo adeegsadeen, wuxuuna soo bandhigay wax ka beddelka sharciga jinsiyadda. Waxa uu soo jeediyay in la bilaabo macadka joojinta jinsiyadda, wuxuuna ku baaqay in la ballaariyo sababaha looga qaadayo jinsiyadda la helay si loogu daro dadka khiyaamiinta ah ee khiyaana Ruushka, kuwa basasnimada ku shaqeeya iyo ka ganacsiga daroogada maandooriyaha. Soo jeedinta ayaa weli sharci la dhigin oo aysan baarlamaanku ansixin, laakiin madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa soo jeediyay. Sidoo kale sanadkii hore 2021, xildhibaan Alexander Knishstein ayaa weydiiyay kanaalka Telegramkiisa, maxaad uga baahan tahay baasaboor Ruush ah haddii aad necab tahay dalkaaga iyo dadkaaga? Laakiin Medyan ayaa sheegay inuu jecel yahay dalkiisa. Dad badan oo Ruush ah oo necab dalkooda ayaa raba inay qaataan baasaboorka iyo jinsiyadda. Dhanka kale, haddii aan usoo laabano, tirada dhimashada ee weeraradii Isniinta ee Donetsk ayaa gaartay 33 qof. Gooni-goosadka Ruushku taageero tirada dadka ku dhimatay weerarada Isniintii lagu qaaday Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqda madax-bannaanida ee Donetsk ee Ruushka ayaa gaartay 5, halka tirada dhaawacan ay marayso 33 ruux. Sida ay sheegeen saraakiisha gooni-goosadka oo ay la hadleen wakaaladda wararka ee Moscow ee taas la yiraahdo. Saraakiisha gooni-goosadka iyo wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa Isniintii si wadajir ah waxay u sheegeen in dhowr gantaal oo Ukraine ah lagu garaacay oo ay ku jiraan suuq weyn oo dadka ay ka iibsadaan cunooyinka iyo raashinka, taasoo ka dhigan in dadka badan ee waxyeeladu soo gaartay yihiin dad shacab ah. Wakaaladaha wararka Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in madfac uu ku soo dhacay isbitaalka hooyadii dhallaanka ee magaalada Donetsk, taasoo keentay in dab uu ka kaco, shaqaalahana ay u diraan bukaanada dhulka hoostiisa. Warar hoose ayaa sheegay in 4 qof ay dhinteen, 22 kalena ay ku dhaawacmeen isbitaalka. Inkastoo warbaahintu aysan si madax bannaan u xaqiijin karin wararkan, mana jirto wax jawaab celin ah oo ka soo baxay Kiev. Ukraine ayaa si joogto ah u beenisa in ay wax weerar ka fulisayba labada gobol ee Donetsk la isku yiraahdo, ama labada gobol ee Luhansk iyo Donetsk ee Donbas la isku yiraahdo. guud ahaan saaxiibayaal, halkaas aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeena. Tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doonno, nabadgelyo.